Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa idin salaamay dhammaan asxaabta ku xiran janalka aqoon wadaag. Videogan maanta waxaan idinku tusi doonaa sida folderka magaca ugu bedeli lahayd ama asigoo aan magac la'aan asaa u save gareyn lahayd. Tusaalahan folderkani waxaa ku qoran maqal. Waxaan rabaa in aan magacaasi aan ka tiro oo asagoo magac ku qoran aan save gareeyo. Teedi ka labaad in aan icon-kani oo jaalaha inaan ka bedelo oo mid kale aan saaro. Si aan magaca ugu bedelo tusaalahan folderkaas aan u taabtay F2 markaan taabto magacaan hadda ku qoran ayaan right click aan taabanaa. Right click markaan taabto kadib waxaan taabanaa insert Unicode control character kadib waxaan dooranaa left to right marker. Markaan doorto enter aan leeyahay kadib folderkii waa ujeedaa magac la'aan ayuu ii save gareeyay wax magac ma ku qornaa. Sidoo kale icon-kan sare oo jaalahana waa ka bedeli karaa. Si aan ugu bedelo asagana right click aan taabanaa. Folderka markaan doorto right click markaan taabto kadib waxaan ka dooranaa property markaan doorto waxaan kasii dooranaa customize hoos waxaan ujeedaa qaybtan oo ah change icon ka bedel change icon markaan ku dhufto waxaa meeshaan ka buuxa icon aad u fara badan oo ujeeda dhowr nooc icon ayaa ku jiro. Tusaale ahaan mid kamid ah dooran kartaa kadib icon-ku isku bedela. Tusaale ahaan waxaan dooran karaa calaamadan flashka haddaan doorto kadib okay aan leeyahay apply okay waa ujeedaa icon-kii oo jaalaha wuu iska bedelay magacna ma ku qorna. teedi kale icon-ka qaybta koran wuu is bedelay. Sidaas ayaad icon-kaaga folderka icon-kiisa u bedeli kartaa sidoo kalena magac la'aan u save gareyn kartaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.